حفلات بلارنا ويسوى بابلين هبلها غير سومالان بريق لندن والشرف لو سمينا وسيل من حكم سومالان حرسي علي حاج حسن ولما حاجه مقدمه اسمها وطن علي هو معاذ طيب بريق لندن السيكا وهذا شير بلارنا وهو قبل يلا يتوقع بالشهر اللي كنت نوم على الصبح كذا بريق لندن ومعاذ اليوم وطن اسيب وحنا شغالين هذا يوكي لا يفضل الدقالة المصرية حول بدل هذا الشيء يستعمل. كذا بها هذه وصل الحياة وجاء ده قد يكون ده يعني هنا يليسك الدراسة مالان ويمكن حافظ المعارض والدوري اللي وصل السياسة سقطوا. وحنا نخصو دوين نالكن عشان شرفته وسير كما دحتويا ده حرسي علي حاتي حسن دمان مرتي شرفك الرقي يدوم مربا كسو قيب قلي حفلة دتان عشان شرفتها اللي قمر تقاضي وسير كني مدحتويا ده وحنومة هادنا قينا هوينك نجلس وقيب قلي أنا جو كم بدأ هوينك إيس لندن وزير كوسو عسومي عشان شرفتها نجا أجيبي دعوتي أنا وفدنا وحنو لنا هاي جزاكم الله خير الجزاء وابن شرفتين الله هيدي شرفه رجع دمر با سامسونج تي في waxay bixinaysaa markay eegtay airtime ay siinayso wadada ya life inay ku ururiso dhaqaale ugu ururiso ilaa wadada intuu dhismaysana ay u sii dayso ayadoona wax kharashana weydiineen soona dhaweynaysa waxaan kaga qayb qaadanaa dhinaca dhaqaalahana wixiina la soo saaro waanu soo dhaweynaynaa welcome baanu leenahaynaa aqoon baa u wada leedihiin aynu dhisno waddadaabaa lagu tashaday maanta dalka dadka dhisaya ee gudaha dhisaya warisiirkaynu dhaafi doona war haddaynu reer UK nahay adduun baynu haysanaa dhaqaalaynu haysanaa aan dhaqaalaha jeebka gelino aynu arrintaa iyada ah waa wax weyn bay noqon doontaa aynu lacagta hurro oo waa sadaqad jaariyana aynu hurro shirkaa soo socdana aynu soo camiro oo hal wada yimaado oo intayna halka joogtaan cid waliba ha gaarsiiso cid ha keento xoolahana aan bixino aad iyo aad baan idin salaamay wasiirku waa wasiirkeennii madaxtooyada waa wasiirkii wadooyinka si weyn buu inooga insha Allah shaafici doona waxa aynu caawa ka filayno halkan inuu inooga soo gudbiyo fariinta isaga inoo soo gudbin doona anigu halkan inta aan ka sheegaya waxa weeye hore inaynu haddii ilaahay yiraah qabanayno shirkii koowaad ee dibadda Soomaaliland dibaddeeda looga qabto wadada isku xidha Erigaabo iyo Burco shirkaas oo noqon doona shir aynu ku daahfurayno kaalmada bulshada Soomaaliland ee qurbaha ku nool kii koobaad noqon doona loona baahan yahay inuu noqdo mid u qalma inuu yahay shirkii koobaad oo aynu aad iyo aad insha Allah uga hagar bixi doono shirka waxaynu qabanaynaa haddii ilaahay yidhaa 16 bisha oo ah maalin sabti ah waa bishan aynu ku jirro waa toddobaadka dambe sabtidan bariya sabtideeda haddii alla yidhaa waxa weeye wuxuu ka dhici doonaa insha Allah hallka Troxy Hall oo ku yaala East London Commercial Road oo badankiinu aanu malaynayna garanaysaan aad iyo aad mar labaad iyo mar saddexaadba dareenkiina muuqda ilaa iyo markii aan airport ka soo degay reer London ay nagu qaabilayeen aad iyo aad baan idinka mahadcelinaynaa guud ahaan reer Soomaaliland oo ilaa iyo intii aanu hawlaha wadooyinka wadnay iyo intii horumarka dalka laga shaqeynayay guud ahaanba si aan kala go'o lahayn u qaabilay horumarka dalka laga shaqeynayo oo uga qayb qaatay aad iyo aad baan dhammaan reer Soomaaliland ugu hambalyeynaya uguna bogaadinaya gaar ahaan qurba jooga kaalinta mugaraya kaga jirtaan waa idinku hambalyeynaya halka runtii casuumadda leego casuumiyay casharafta waa idinka gudoonay waa ku mahadsantihiin hadalka wixii aan ku talagalay inaan iraahdo
waa inoo shirka haddii alla ka dhigo ay iman doonaan xubno badan oo ka socda dhinacyo kala duwan especially guddigii ay iman doonaan qolyo kalena oo badan aan filayno insha allahu tacaala inay ka soo qayb qaataan oo lagu kulmo insha allahu tacaala halkii uu idiin tilmaamay 16 bisha أحمد عمرو إسماعيل،